cudurka malaariyadu waa cudur kamid ah cudurrada loo yaqaan dulku nooleyaasha ama parasite-ka cudurkani waxa lagu kala qaadaa in ay kaneecada qaybta dhadig ama nooca dhadig ay qaniinto qof cudurkii qaba kadibna dhiigii ay ka soo nuugtay ama ka soo muusatay ay qof kale maartay qaniinaysa kadib ay ku sii deynaysaa dhiiga kadib ay qofkii saa cudur ku qaadaya marka cudurka waxa keenta kaneecada loo yaqaano Anopheles qaybta dhadig ah cudurkani waa cudur halisiisu aad u badan tahay kuna badan Afrika waa cudur dad badan maartay ay u leedeen dad badan dhibaato soo gaarsiiyay 2020 hadda aan fiirino 2022 tirakoobkii ugu dambeeyay hay'adda caafimaadka adduunka ay soo saartay 249 milyan oo qof ayaa cudurkaasi uu ku dhacay 608 kun oo qofna way u dhinteen 85 wadan ayana arinta ay ka dhacday 2023 waxay ku dhacay cudurkan malaariyada duumada ku dhacday 247 milyan waxa uu dhimatay 619 qof dadkaas aan ka soo sheekaynay boqolkiiba 94 dadkaas ay malaariyada ama duumada ku dhacayso waxay ku nool yihiin Afrika cudurkan asaga ah wax calaamado oo lagu garto ma leeyahay dabcan cudurkan wuxuu leeyahay qandho wadata dhaxan ama gargariir wuxuu leeyahay hunqaaca ama mataq la labo wuxuu leeyahay kurjajab mararka qaar kood wuxuu yeeshaa beer barar iyo maartay inay beerku uu ku bararo haddii qof dumar ku dhaco waxay u badan tahay ama mararka qaar kood dhacda inuu ilmaha ka soo rido ayada lafteedu malaariyadu way si kala duwan tahay laakiin waxa ugu muhiimsan ku naqaan waxa kamid ah qandhada madax xanuunka qandhada gargariirka wadata jirka oo dhan oo ku wada xanuuna inahaas ayaa ugu muhiimsan yaa halis ugu jira cudurkan dabcan halis waxa ugu jira carruurta yararta 5 sano ka yar hooyada uur kale dadka difaacooda u hooseeya ayaa khatar ugu jira seen ku ogaan karaa oo qofku uu ku ogaan karaa maxaa looga baahan yahay qofka malaariyada iskaga shakisan wuxuu ku ogaan karaa inuu tago goob caafimaad iskana baar dhiiga laga qaado dhiigaas ayaana lagu soo sheegay haddii cudurka lagu arko qofka waxa uu leeyahay dawooyin la qaato oo loogu talagalay cudurka duumada ama malaariyada si looga hortagi karaa oo ah qodobada inoogu muhiimsan waxa looga hortagi karaa in dadku ay wacyigelinta ay qaataan mara kaneeca ay xidhaan mara kaneecadu aad bay muhiim u tahay iska ilaaliyaan meelaha ay biyuhu ay fadhiyaan oo kale inay biyaha maartay fadhiyo oo kale ay cabaan haddii ay iska hagaajinin waxay kale u baahan yihiin in ay goobo caafimaad ay ku xidhnaadaan marka ka hortagga ugu muhiimsan waxa weeye mara kaneecada in la isticmaalo biyowga meelaha fadhiya ay ku dhashana in la iska ilaaliyo waxaan ku tala bixinaynaa qofka isku arka madax xanuun ama calaamadaha malaariyada inuu aado goob caafimaad goobta caafimaad waxa laga helayaa baaritaanadoodii waa lagu baari waxaad ka helaysaa dawo hadduu Ilaahay yiraahdo adiga oo lagu baarin oo lagu sheegin cudurka dawaha qaadanin arintaasi waa arinta dhibka ugu fara badan nagu haysa oo dhibaatooyin fara badan nagu keentay marka waxaan ku tala bixinaynaa dadku in ay maartay ka fogaadaan dawo aan loo qorin waxaan ku waaninaynaa inay goobaha caafimaadka ay tagaan dawana ay qaataan hadduu Ilaahay yiraahdo waxa xusid mudan in marar badan qofka hadduu madax xanuun isku arko in maartay uu dawo malaria maalin kasta uu qaato aad iyo aad baad u mahadsantiin cudurkan waa cudur dilaa ah waxaan rajaynaynaa dhammaan inay fariintaas dadku ay soo gaadhay kana digtoodaadaan dawo la iska qaato oo cudurka duumada loo qaato dhimashaduna aad bay noogu badantay aad iyo aad baad u mahadsantiin soo gudbinta fariintani waxa iska kaashaday wasaaradda caafimaadka dowladda Jubbaland iyo hay'adda UNICEF